بسم الله الرحمن الرحيم waxaa aan galabta si mac salaameynayna sanadkii 2014 waxaanan soo dhaweynaynaa sanadkii cusbaa ee 2015 waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu noo noqdo sanad khayr iyo bashbash iyo barwaaqo iyo wanaag iyo qof walba himiladiisa oo rumowda sida ibn aadamka oo dhanba ay ka siman yihiin marka sanad cusub bilanaya haday tahay sanadka islaamiga iyo haday tahayba sanadka dhalashadii nabi ciise calayhi salaam dadku dabaaldegaas wuxuu macnihiisu yahay qof walbaaba waxa uu rajeynaya bal hada sanadka cusub bishay inuu u noqdo sanad ka wanaagsan sanadkii tagay laakiin mid baa hubaala qofku hadaanu qorshe iyo barnaamij iyo hami iyo wax qabad wanaagsan meel dhigan oo barnaamijkaasi meel u oolin way adag tahay in riyadiisu rumowdo hadaba si riyadaadu u rumowdo wax laga yaabaa hadaad adigoo kala tahay ama ibn aadamka caadigaaba inaad isqoomameynayso oo aad ka fikirayso inuu sanadkii hore ama si kugu dhaafay ama wax ka dabacsanaayeen ama sidii la rabay aanu ku noqon laakiin hadaba si aanad qoomamadaas ugu jiray sanadkii maanta bilow yahay caawu bilow yahay baribo hadii ilaahay yiraahdo naftii noo daayo uu bilow yahay qorshe samayso qorshahaas wax kasta noqon kara kii rabay inuu guursado guur ka fakiraya kii raba inuu arday yahay ka fakirayo tacliintiisa dhamaysto kii raba inuu shaqo doonahay shaqo ka fakiraya maanta raba inuu shaqo helo qof walba waxba hamigiisa ku jira waa muhiim inaad qorshe samaysato oo qorshahagaasi si cilmiyeysan intood u fadhiisato gaar ahaan waliba dhalinyarada dadka waaweyn ee maanta wadanka jooga ama adduunka joogaaba qof walba in badan buu noloshiisa soo qaatay laakiin dhalinyarada nolol badan oo harsan tahay ee waqti badan oo harsan tahay haduu ilaahay cimrigooda daayo waa muhiim inay qorshe samaystaan oo qorshaha u fadhiistaan oo si kala jajabiyaan qorshahaas qayb yar u fuliyaan laga yaabo in aan sanadku markuu dhammaan qorshaha aad rabto dhan aanad wada gaarin iyo sida aad rabtay aanad wada gaarin laakiinse waxa hubaala hadii sanadka koowaad ba aad qayb ku guuleysato sanadka ka sii dambeeyo way ka sii ficnaanaysaa ka sii dambeeyo qorshahaagu ka sii ficnaanaya ugu dambeyntina hamigaagu run buu noqonayaa waxaan ilaahay nooga baryayaa inuu qof walba hamigiisa iyo rajadiisa iyo waxa uu nolosha ka damacsan yahay inuu sanadka inoo soo socdo ee 2015 uu ilaahay u hirgeliyo dhamaantii waad salaamantiin guul